dadweynaha ku dhaqan degmada Sheekh ee gobolka Saaxil ayaa si weyn u cambaareeyay xadhigga agaasimaha Star TV Maxamed Baashe. dadweynaha deegaanada oo qaarkood aanu mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa ugu baaqay xukuumadda inay xorriyadiisa si degdeg ah ugu soo celiso agaasimaha Star TV Maxamed Baashe. sidoo kalena waxaa jirta dad badan oo nagala soo xiriiray deegaamada fogfog ee gobolka Saaxil kuwaas oo khadka telefoonka ku cambaareeyay xadhigga agaasimaha. dadweynaha aanu la dhex qaadnay mikrofoonka hadaladoodii waxaa ka mid ahaa maxamed baashe suxufiga maxamed baashe xornimadiisa loo sii daayo maxamed baashe waa nin suxufiya waa nin daacada waa nin dawladda u hoggaansan ha loo sii daayo xornimadiisa. halkan waxaan ka cambaaraynaynaa xadhigga waxaanu ka hadlaynaa xadhigga maxamed baashe waxaanu leenahay xadhiggiisa waa xadhig xaq darro oo sharci darraa ha la sii daayo si madax bannaan oo bilo shuruuda. maxamed baashe xadhiggiisa ayaanu halkan ka cambaaraynaynaa waxaanu leenahay ha la sii daayo qofku haddii uu dawladdu waa inay haddii qofku xitaa khalad galo waa inay ku dulqaad ugu yeelataa waxqabadkiisii hore ama taytalkiisii hore. halkaa waxaa ka muuqata caburinta la sheegayo ee gobolka lagu hayo dee in wax badan dawladdu ka tanaasusho haddii ay jirto annagu waxaanu leenahay ninkaa ina baashe maxamed baashe dee la sii daayo ilaa qofkii saldhigu laguma hayee waa nin suxufiya waa nin daacada waa nin had iyo goor ale dhaqanka iyo hiddaha aad uga sheekayn jiray. waxaan halkan ka cambaaranayaa xadhigga maxamed baashe ninka suxufiga lagu xidhay xafiiska waxaanan leeyahay ninka xorriyaddiisa dib loogu soo suxufiya waa nin dhaqanka wax ka garanaya markaa waxaan leeyahay dawladda waxaan ku cambaaraynayaa inay u soo daayaan xornimadiisii u soo celiyaan xorriyaddiisa in loo soo daayo maxamed baashe ayaanu leenahay runtii agajuglayntana laga daay ay dawladdu ku hayso haddaanu nahay shacabka Soomaaliland. waxaanu xalan ka cambaaraynaynaa maxamed baashe oo xadhiggiisa oo lagu hayo xadhig xaq darro ah xukuumaddan xilxilaysa saxaafadahana xorriyaddeeda ha u sii daysa baan leeyahay saxaafadda oo ha laga daayo cagajuglayntii ama qabataynta lagu hayo saxaafadda. assalaamu calaykum waxa weeyaan weriyaha maxamed baashe xorriyaddiisa loo sii daayo taasaan anagu leeyahay horta wuxuu weeye in saxaafadda la caburiyo maaha saxaafadda wuxuu weeye xor dastuurkeenu wuxuu dhigaya saxaafadda xor ahaato markaa in la caburiyo maaha. سعيد أحمد تمريسي تلفزيون كعالمي ستار شيخ